Kim Jong Un kani waa madaxweynaha dalka waqooyiga Korea. madaxweyne si u kibir badan sinna u ah kaligiis talis. laakiin ninkan ma ogtahay in uu leeyahay musqulo gaar ah. musqulaha uu leeyahay ma ahan kuwa meel ku yaala, laakiin waxay ku yaalaan gawaarida ninkan uu isticmaalo. xitaa wadamadu uu dhoofo kulamada kala duwan uu kala qaato madaxda kala duwan ee caalamka iyo kuwa lagu casuumana musqulihiisa gaarka ah waa uu u qaataa. haddii qof ka mid a ilaaladiisa musqushaas uu galana xakun adag ayaa lagu soo rogaa. maxay tahay xakunkaas? muxuu ku diiday inuu isticmaalo musqulaha dadka caadiga ay isticmaalaan? muuqaalkan ayaan kuugu sheegayaa. Kim Jong Un, madaxweynaha waddanka waqooyiga Korea oo la ogsoon yahay inuu yahay madaxweyne mayal adag, dhibna badan, sidoo kalena kibir badan, ayaa waxa uu leeyahay musqulo gaar ah. musqulahaas qaarkood waxay ku dhex yaalaan gawaaridiisa gaarka ah ee ninkan. gawaarida gaarka ah ee lagu qaado ayay ku dhex yaalaan qaarkood, sida gawaarida bulletproofka xabadaha aanan karin, Mercedes-ku isticmaalo, iyo gawaarida kale ee caalamka oo idil qaaliga ka ah. gaari kasta uu qaato ninkan waxaa ku dhex yaalaa musqushiisa gaarka ah. gawaari kasta ama baabuur kastana musqushaas waxaa waardiye ka ah dhammaan shaqaalihiisa gaarka ah ee ilaaliya isaga, kuwa bodyguardska, yacni kuwa ilaaliya ee sida gaarka ah u tababaran. ninkan mid ka mid a dalalka ku yaala dunida, gaar ahaan waddanka Singapore, ayuu mar musqulihiisa gaarka ah la tegay. markii dalkaasi uu tagayna musqul uma uusan baahan, uu musqushiisa isaga ayaa watay, si gaara ayuuna u isticmaalayay. sababta ku kaliftay in musqulihiisa gaarka ama musqul gaara uu isticmaalo, baabuurtiisa ku dhex samaysto musqul meel kalena uusan ka gelin, waxay tahay hal shay. hadda waa hal shay. shaygaasina wuxuu yahay in ninkan saxaradiisa marka uu saxaroodo kadib, haddii uu ku saxaroodo musqulo kale, in saxaradaas la baaro kadibna la ogaado cudurrada gaarka ah ee ninkan saxaradiisa ay qabto, yacnii kuwa isaga si gaara uu qabo dhanka caloosha ah, ayay tahay sababta ugu weyn uu u diidayo inuu isticmaalo musqulahaasi. gawaaridiisa gaar ahaan kuwa uu ku maro dhulka barafka ah, kuwa buuraleyda ah, iyo sidoo kale kuwa kale uu safarka ku galo, guud ahaantood markii loo eego ninkan musqul ayaa ugu dhex taala gaari kasta. musqushaasina waxaa mar kasta korjoogteen ku haya ilaaliyana shaqaalihiisa gaarka ah. mid ka mid a shaqaalihiisa haddii saxaro ama kaadi ay qabato ma geli karo. haddii lagu arko oo uu galana waxaa lagu xukumayaa dil toogasho. xabsi ma ahan ciqaab kale, ma ahan xakun kale oo lagu rido. haddii mid ka mid a iska daa dadka kale, mid ka mid a shaqaalihiisa haddii lagu arko in musqulahaasi gaarka ah uu isticmaalo, waxaa lagu xukumayaa dil toogasho oo nolosha ayaa la dhaafinayaa. amarkaasna waxaa soo rogay isaga madaxweynaha waddanka waqooyiga Korea ama North Korea, Kim Jong Un. Kim Jong Un cajaa'ibtiisa iyo madaxdeegiisa gaarka ahna xitaa waxa uu sababay inuu samaysto musqul gaar ah, musqul gawaaridiisa ku dhex taala, iyo sidoo kale baabuur nasiina ah, baabuur uu cunto ku cuno, mid uu ku saxaroodo, mid si gaara uu isticmaalo. dhammaan gawaaridaasina lama kala yaqaano, midka nasiinada uu ku qaato, midka musqusha u ah, iyo midka kale, dhammaantood waa isku mid. cajaa'ib iyo layaab ayayna tahay. waddanka Singapore markuu tegay aad ayaa loola yaabay ninkan in musqushiisa isaga gacanta ku wataba. waana waxa madaxda waddanka Singapore oo dal horumarsan dad ahaan, dhaqaale ahaan, iyo sidoo kale dal ahaanba, ayaa aad ula yaabay Kim Jong Un, hogaamiyaha waddanka waqooyiga Korea, in musqushiisa isaga uu wato. ninkan wuxuu ku diiday in saxaradiisa la baaro, kadibna baaritaan lagu sameeyo, kadibna la ogaado sirtiisa gaarka ah. wuxuuna ninkan kasoo horjeedaa wax kasta oo ku aadan in sirtiisa gaarka ah, haddii noqon lahayd caafimaadkiisa, dhaqaalihiisa, ciidamadiisa, iyo wax kasta in la ogaado. ninkaana adduunka ayuu ka yaabiyey markii Singapore uu ku tegay musqul isaga oo wata, iyo sidoo kale in gawaaridiisa, weliba gawaari qaali ah oo aan loo quurin in lagu dhex saxaroodo, uu ku dhex samaystay yacni qayb yar uu ku saxaroodo. waana waxa dadka ka yaabiya guud ahaanba. muuqaalkii maanta intaan ayaan kusoo koobayaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.